madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho ku yimid xarunta madaxtooyada qaranka oo uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha xafiiska jooga Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. labada madaxweyne oo kulan gaar ah ku yeeshay qasriga madaxtooyada ayaa iska wareystay xaaladda guud ee dalka, wada jiruusi ambaqaadida geedi socodka dowlad dhiska iyo dardargelinta dadaalada horumarineed ee dalka ka socday 5 sano ee la soo dhaafay. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mar kale ugu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud mas'uuliyadda loo igmaday ayaa u rajeeyay in alla u fududeeyo gudashada waajibaadka qaran ee saaran. waxa uuna ku baaqay in lala shaqeeyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si ay u gudato waajibaadka qaran ee horyaalla. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ugu hambalyeeyay walaalkiis madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilka loo doortay ee madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, isagoo alle uga bariyay in uu u fududeeyo mas'uuliyaddan culus. waxa madaxweyne Farmaajo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed uu ka codsaday in ay si buuxda ula shaqeeyaan dowladda cusub. madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uga mahad celiyay madaxweyne Farmaajo soo dhaweynta diiran ee ugu sameeyay madaxtooyada qaranka ayaa ku ammaanay shaqadii uu ka qabtay dib u dhiska dalka iyo horumarinta dowladnimada. dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyay madaxweyne Farmaajo dadaaladii horumarineed ee uu geliyay dalka iyo dadka muddadii uu xafiiska joogay. dhanka kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada munaasabadda xil wareejinta madaxweynaha oo uu hogaamin doono agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciise, isagoona faray inay si degdeg ah u diyaariyaan munaasabadda oo xilka kula wareegayo madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, Villa Soomaaliya.